بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولك وحوليه عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافا إلى المجاهرين. أمتي يدودن ودنبي قوضا كوا لضافة يا ووالون نحريسانا يا ويعني محان كورهاي كي دنبي قلبه هاي إلهي سبحانه وتعالى أنتو أطوبت كينا دنبي قسوا لضافة يا كوا مجاهرين تما أحاني أوفيسو كوا مجاهرين توا أيو كوا لجهرة كوا معناها يعني خرسان وايا كوا معناها u arka inay wixii ta wax lagu faano kuwa u arka yani ceebtii ay xumaantii ay sameeyeen ama ay sameynayaan inay macnaha reer magaalnimo tahay inay ilbaxnimo tahay inay xurriyad tahay kuwa arka ee mujaahiriinta ee faafiya haddana zamankeena maxaa ka badan in qofka intuu soo fariisto YouTube ama Facebook iyo wixii la midka ama Instagram qofka inuu soo geliyo ama Snapchat oo soo geliyo iyo wixii la midka ah intuu soo geliyo asagoo yani xumaan sameynaya asagoo xumaan ku dhex jira asagoo yani maxaa intaasoo ummadna ay ku marxaati kacayaan subhanallah hada u fiirso ilaahi tabaaraka wa taala yani kuwa noocaas oo kala ah dambigooda ma dhaafo kuwa noocaas oo kala Allah subhanahu wa taala oo ku waroodo maxaa yeelay rasuulullaahi alayhi salaam wuxuu leeyahay waxa dhacaysa an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan qofka inuu habeen amal sameeyo ujeedada waa maxay un habeen macnaheed ma waxa loo jeedaa meel qarsooni aad ku jirto gurigaad adoo ku jira qolkaad adoo ku jira habeenkii oo mugdigiis adoo jooga hadii aad amal inta sameeyso oo dabcan xun macnaha thumma yusbihu waqad satarahu Allah kadibna uu waabariisto qofkii asoo ilaahay subhanahu wa ta'ala asturay gurigii la geliyay gurigiisa ku jira qolkiisa ku jira ama habeen mugdi ay tahay waa bariisanaya qofkii fayaqulu markaas wuxuu leeyahay fulan amiltu kada البارحة كذا وكذا سياسا سمي معناها حمانتي وشيغايا ما انت waxaaba ka sii daran waa maxay qofkii asoo gurigiisa jooga intuu live soo galo oo xumaantii saa u faafinaya subhanallah la jahraya markaas waxa lagu leeyahay dadka qaarkiisa ay ku leeyihiin khari la bartay wax la qarinayo malaha subhanallah miyaysan ahayn xishood kamid iimaanka kamid miyaysan ahayn miyaadan ogeyn inuu al-hayaa shu'batu min al-iimaan yahay حشوتك إنه قيب إيمانك كميدا يوم ميادن أوجين رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لو قلت المامي الجري يعني حشوت كيسة مد آديات أسرية والله مد يعني تقريبا قبل يري مركز يعني قانقارتي جورك ديار كوقة مرك أنت الله صوت دونت يعني حشوتك أي حشوني سو وفيرس يعني حشوتك نوع عصو كلا إن لو قلت المامي ميادن أوجين إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يجري الحياة لا يأتي إلا بالخير معناها حشوتك ما كانوا لما يماذو إلا خير ما هاني خفك حشوت خير وهلا وانا أقونوا هلايا وفرسو سيدا درت رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوليه مرق خفك انتو إلهي سبحانه وتعالى وقريو أيو انتو وبريست أساقو حوليه أما انتو وحي مرق حالي سمي أما ما انت سمي من قريس كو سمي انتو بناك كانوا ليه وحا سمي أيان سمي وذلك الله خبسنا أيام وقد بات يستره الله رب وقد بات وحنا قفك وابريسي اما او كجير اما حالده كسغناده احاتي يستره ربه انه الهي يستره ويصبح يكشف سر الله عنه او فيس كدبنا او اكتشافه موجيو معناها صوبن بخيو وحي الهي سبحانه وتعالى واستري قف كان وحو الهي واستري waxa loo qariyay waxba ilaahay subhanahu wa ta'ala yani u dabooray markaas oo qad baata yani yasturuhu rabbuhu subhanahu wa ta'ala ilaahay ba u asturay yani xumaantii wixii uu sameeyay asagana muxuu sameeynaa yani ويصبح معناها يكشف معناها من ستر الله وفيرس ستر إلهي تبارك وتعالى حندابكي لغو حندابي غوريغيسي قولكيسي iyo wixii la midka ahaa intuu ka soo dhaxbaxo Facebook live oo soo galo ama YouTube live oo soo galo ayuu muxuu sameeynaa ayuu wuxuu sheegayaa xumaan wuxuu ku hadlayaa xumaan wuxuu muujinayaa jirkiisa ama ay muujinaysaa jirkeeda ilaahna uu asturay ilaahna tabaaraka wa tacaala wuu asturay ilaahay wuxuu ugu naxariistay oo qofkan macnaha loo siiyay u fiirso inuu hadda xayawaanaadka banaanka ay seexdaan xayawaanaadka guriga ma dhistaan bal u fiirso xayawaanaha marka ay مثلا tusaale ahaan yani
ay dhalayso oo kale tusaale ahaan inay macnaha shimbiraha iyo wixii la midka coosh ay dhistaan oo kale godad inay qotaan oo kale iyo wixii la midka tusaale ahaan way dhacdaa oo macnaha qaboobkii dhaxanta ay ka galaan laakiin guryaheena oo kale ma dhistaan mana yaqaanaan aqliyaasi ma lahan bal u fiirso xayawaanaadka waxaad arkaysaa ayagoo bannaamada matalan tusaale ahaan isku fuulaya tusaale ahaan ayaad arkaysaa caadada ibn aadamka maxay tahay marka dhinacaas loo yimaado asturnaan meel daboolan meel xiran hadda ma la yaabtaa ma aragtaa arrintii hadda soo banbaxaysa waa tuu rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qiyaamaha waxaa iman doona xaaladda noocaas oo kale inay zinada badato ilaa ay soo daahirto bannaanka imaato sidaa darteeda ogow xishow macnaha waxyaalaha ilaahay uu ku asturay qari ujeeddada waa maxay aniga kuma dhihin rasuulka calayhi salatu wasalaam ku dhahaya xishow rasuulkaa ku dhahay calayhi salaatu wasalaam wixii xumaa aad samaysay ama kugu dhacay u fiirso qari aniga kuma dhihin rasuulkaa ku dhahay calayhi salatu wasalaam qarin macnaha maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ma ahan waa la idulmay dhibaa la igu sameeyey u fiirsa yacnihi kadibna yacni wixii dhibtii aan qarsanay laa taa loolama jeedo dulmiga lagu sameey waanaad aarsataa in alle inta la midka aad ku arsan kartaa yaa inta la midka aad ku arsan kartaa tusaale ahaan maalan gabalaa la kufsaday ka soo qaata waa arrimaha socdo muddooyinkan iyo wixii la midka dabcan socon jiray saa looma maqli jirin saa looma arki jirin laakiin warbaahintii waxay macnaha ama social mediahan tirada batay oo hadda gacmihii ka baxay ayaa waxaa dhacday waa maxay in wax walbo yacnihii quraanshadii meel ku dhimata hee la sheego dameerkii maxaan ku dhahay meel ku kaadiya la sheego gurigii la dhaco la sheego ninkii la dila la sheego qaraxii dhac la sheego gabadhii macnaha social mediaha keenay taa darteeda qofka dulmigaasi lagu sameeyey ee lagu xadgudbay sharaftiisa lagu xadgudbay wuxuu xaq u leeyahay dabcan inuu isdifaaco inuu taageero raadsado ayuu xaq u leeyahay inuu iska dhiciyo xaq u leeyahay taaceeb ma ahan adiga aad samaysay dembi adiga samaysa ma ahan waa wax dulmi lagugu sameeyey u fiirsa yacni marka lamid ma ahan tan aan ka hadlayna tan ilaahayna waxaan u weydiinaynaa cid alla ciddii la dulmay ee dulmigaasi foosha xun uu ku dhacay khaasatan meelaha inta ay ka dhacdo inta dumar yaryar lagu kufsado ama waaweyn lagu kufsado kadibna cidday u ordaayeen ay caddaalad iyo wanaag ay ka raadinayeen ay noqoto kuwa macnaha hee caddaalad samayn waaya kuwa markaasi ku jeesjeesa kuwa macnaha kuwii junaadda ahaa ee xumaanta sameeyey ee khashinka ahaa ee faaxishada sameeyey u heeliya subxaana allah ilaahay miyuunan dhehaynin subxaana allah yuunan noqonin midkiina khaa'iniinta mid khasiim u ahoo u dooda mid khaa'iniinta iyo shayaadiinta iyo macnaha mujrimiinta u dooda ha noqonina sootuu ilaah yidhi macnaha alle sidaasuu leeyahay waxaa lagu leeyahay adiga shakhsiyan wixii adiga kaa dhaca ilaah baa ku asturay ee xun xaq macnaha ha faafin sidaasaa diinta ay ku leedahay amaa dulmiyaa lagugu sameeyey wax awooddaada ahaynaan lagugu sameeyey meel kalow kaaga yimid dabcan waad aarsan kartaa ilaahay baa diintiisa kuu fasaxaysa inta la midka aad ku aarsanaysaa dabcan inaad gargaar dalbato oo aad faafisana xaqaad u leedahay marka tan aan ka hadlayna waxay tahay waa maxay fasahaadda xumaanta yacnihii ee uu rasuulka calayhi salatu wasalaam ka digay in qofka uu ilaahay u asturay inuu bannaanka bixiyo walaal ha bixin bannaanka ceebtaada walaal dhibaatadaada ha bixin bannaanka xaaskaada xumaanteeda ha bixin bannaanka ninkaada xumaantiisa bannaanka ha bixin reerkaada xumaantooda bannaanka ha bixin wixii kugu dhacay ee dhib ah shakhsiyan kugu dhacay ee markaasi aad isleedahay gargaaraad ka helaysaa ciddaasi haddaad u sheegto gargaarkaasi dalbo laakiin xumaan ha faafin cayb ha faafin maxay tahay macnaha ku jira muxuu yahay faa'iidada ku jira ama ay ku jirta yacnihii in qof ninkeeda isku dhaceen xaaskiisa isku dhaceen intuu yimaado يعني فيديو أما كاميرا قرصون أنتو صدقوا أما إيه صدقتوا إيه كدوا بس محويها معنا ضمير كاسي قرمان لهين معنا يعني هي ضمير حمذا لي ذا الشذا يعني عقل الدرذا ما ماشي مرتبطة معناها أن كمرنا ما ماشي سانقارني سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يينا أنت سيدا وحنوس حنون هذا إنه كخاضو أنت سيدا وحنوس إنه حنون هذا كخاضو إلهينا قلبي وضوء هنون قريو إلهينا سيدو كلا قلبي حنون هقريو وح الله وحي حمان إيه حنون إيه قشن أننا نفتنا نقول جلنا إنه إلهي سبحانه نغسف فيه نعم أصلك وحو دعايا مركز جناد الله تغا وحا أوران لسفين دونا لكن هذا وحا الأولية هي
يعنيه أديك النقو قف أمركي يوحي اللغوش قاطع ودن أيات جوكتا أفرسو بل إله بانكو قدر شيء تصالهم أفرسو ودن جوكتا واحد ديار أطها إنا معناها فوليسو وح الله وحي مركاسي ودن كاسي شرعي ساعة إنا فوليسو يعنيه أوامرتي ودن كاسي ديار أطها هذا أفرسو ميسان هبونين وحو إلهي كو أمرايو وحو رسولك كو فرايو وكو أمرايو إنا تفوليسو ميسان هبونين ميسان مضنين ميابا أهين قف مسلمة أقو رسول الله عليه الصلاة والسلام وحو كو أمرايا كليهي ونكو شيغايا كاغانا ديغايا مجاهر إنا نقطو حمانتي إلهي كو أسطري كو قريي إنا فك سيسو رسولك عليه الصلاة والسلام كاغا ديغايا بل إنا ندنبي قادر دافين بو رسولك كو شيغايا بل فضيحة هذا اسكو سمعينيسو إما أنت قيام السيدة لغو فضيحين دون أدنى أفيرسو لغو فضيحين دون هذا أدي واحد أركتا عقليا أنت أرداش إيه أما عقلي قابا إيه صعبتو ميسا سيدو كاري إيه كو صعبتو ميسا يعنيه أيغانا وحي واركان وحواناكسان لغا يابا إلا أقو معناها زمن والبابا أما عيد والبا أو حدشا إلا تاغيرتا ميادن أقين إنو إبليس اللي تاغيرو إنو ليه إبليس أقول فرعون تصالحان فرعون إنه تاغيروين آدو تربضان لها ميادن أقول أفرسو قف والبو جبارة مجرمة توقع مؤمن أو وناكسن معناها دين له دين عن لهين قف والبا تاغيرو ليه قف والبا تاغيرو ليه سيدا درت رسولك عليه الصلاة والسلام معناها إلهي كبر يجري أو يجري يعني إلهه بطانة صالحة نسي معناها ضد لطريال oo taageerayaal wanaagsan ah ilaahu nasi u fiirso hal isticmaal ilaahay kaasho subhanahu wa ta'ala isku day in macnaha wax alla wixii markaasi yaani keeni kara diintaada in macnaha ay wax yeelato oo keeni kara in diintaada oo macnaha dhaawac gaaro keeni kara in Allah subhanahu wa ta'ala ka fogaato isku day inaad ka leexato ibn aadanata waad khaldamaysaa ابن آدم أنت ويعني معناها قدوة كل عكريسة واحد أطها واحد صار إنسان أطها ويكون دعاية لكن واحد آد الليدته آد معناها يعني حالات هذا كجرته قفك مالي والبقون قدك كدعة مالي والبقودك كدعة هذا أفرسه صدبال ما هنقف ما أنت وجود كدعة يقولي صورتيسا قدنا كديمنا يعني هذا بريتو كدعة بريدن بكدعة ومالي بكدعة وميون أركين قدك موسك آسو فسيدا ما طبعا وحلا مت إن قفكن إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسا كسو وينادي كسو برباري أن وحكا يقانا وحكا إنو هدانا الدفيرو ديدو أساقو راليكو شروع دا لدجي إنسان كإدجيين إنو قيبو حفظو أرتكل هبل إنو معنا أحفظو أساقو ديارو إلهينا سبحانه وتعالى ما فضيحيو اي والله اسفضحين الهي سبحانه وتعالى هنا استروا اي والله استر والله هذا استرت الهك استرايه سوما هين قفكي مسلم استره وفيرسو قفك لو مسلم ولا لك عيبتي ساستره الهنا عيبتي سواء استرايا ما انت قيامه سوما هين عيبت هذا اله استرايا الهك استرايا وغورما حتى اديغنا سميسو كلمه انت لا هذا اديغ شخصيا هذا اله دس اخرى wax alla wixii markaasi yaani ka soo baxay jawaarixdaada wixii afkaada ka soo baxaya wixii jirkaada ka dhici karaya ee xumaan ah dadka la qaybsan qari intaad qarin karto ilaahina subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo huwa khayrka isla dardaarma xumaanta iska reeba ilaaha naga dhig kuwa noocaas oo kala ah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها